kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran YouTube-ka Diamond Show mar kale iyo ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waxaan dhex mushaaxeynaa barnaamijyada iyo sheekooyinka qisooyinka la xiriira arrimaha bulshada iyo kuwa caalamka ayaan markaasi idin soo gudbi doonaa wuxuu haatan dhambaalkeenu uu markaasi kor taagan yahay wiil 24 sano jir ah ayaa laga helay wadada treenka ee deegaanka Belgium ka tirsan gobolka Karneta ee dalka Hindiya. wiilka kiiskiisa ayaa isbedelay kaasi oo lala xiriirinayo dilka wiilkan inuu markaasi arrimo jacayl oo yahay. wargeyska Indian Express oo kasoo xigtay booliska ayaa sheegay in meydkan Armas u muuqday mid la jarjaray balse kadib baaritaan lagu sameeyay waxaa soo baxday in la dilay. booliska ayaa sheegay in sanadadii lasoo dhaafay sidoo kale ay baarayeen kiiska ninkan iyo xiriirkiisa jacayl ee kala dhexeeya gabar Hindi ah. dhanka kale hooyada dhashay wiilkan Armas, Najma Sheikh oo 46 jir ah ayaa sheegtay in dilka wiilkeeda looga shakisan yahay inay la xiriirinayaan dacwadda booliska loo gudbiyay taasi u gudbiyeen aabaha dhalay gabadha xiriirka kala dhexeeyay wiilkeeda iyo walaalkeeda iyo qaar ka mid ah ururada Hinduuga. Armas oo ku noolaa deegaanka Assam Nagar ee degmada Galbo wuxuu ahaa injineer gawaarida ka ganacsan jiray. markii meydkiisa la helay 28 Diseembar, booliska ayaa markiiba diiwaan geliyay in ninkaasi uusan isdilin, balse baaritaan kadib waxaa soo baxday in madaxa wax looga dhuftay taasi oo ka dhigan in la dilay. madaxda booliska deegaanka ayaa yiri waxaan kiiskan u diiwaan gelinay dil kadib markii hooyada wiilka ay dacwad soo gudbisay, waxaana loo gudbi doonaa booliska degmada Galbo baaritaan dheer ah si loo sameeyo. sarkaal sare oo booliska ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay inaan weli kiiskaasi si rasmi ah loo soo gudbin, balse xogta ururinta ay ku ogaadeen in dilka Armas uu lala xiriirinayo jacayl oo gabar kala dhexeysay Hindu ahayd. ilaha booliska ayaa waxay sheegayaan in dhammaan dadkii la soo eedeeyay wax ka ogaadeen. haatan waxaa dadaal loogu jiraa baaritaanka dhacdadan. xiriirka jacayl wuxuu ahaa arrin taagan waxaana socda wadahadalada labada dhinac. booliska ayaa intaasi ku daray inay ka shakisan yihiin xubin ka tirsan ururka xagjirka ah garabka midig oo ku leeyahay kiiskan. hooyada Armas Mula, Najma Sheikh waxay macallimad ka tahay mid ka mid ah dugsiyada dowladda. marka ay la hadlaysay wargeyska waxa ay sheegtay inay ka warqabto wiilkeeda muddo 2 sano ah oo xiriirka jacayl lahaa gabadhan Hindiga ah. aniga iyo qoyska gabadha waan ka wada xiriirnay, waxaana ku noolaan jirnay Kalambur oo u dhow Belgium, waxaana codsanay inay gabadheeda ceshadaan aysan la kulmin wiilkayga. isla sidaas darteedna amaro iyo cagajugnayn nooga yimid halkaasi waan ka soo guurnay. Najma saygeeda wuxuu geeriyooday 3 sano ka hor, halka gabadheeda iyaduna ay injineeriyad ka tahay ka shaqeyso magaalada London ee dalka Ingiriiska. waxayna sheegtay 2 maalmood ka hor inay wiilkeeda iyada asagoo ay la kulmeen 2 qof oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Hinduuga, waxayna u sheegeen inay caqabad xun aan kala kulmi doono aan ku laabnay halkii markii hore aan ka nimaanay. taariikhda markay ahayd 26 Diseembar, Armas iyo aniga halkaasi ayaan tagnay iyadoo familka gabadha xiriirka wiilkaygu kala dhexeeyo hortiisa oo ku tirtiray sawirradii saaxiibtiisa taleefanka ugu jirtay. Najma ayaa sheegtay inay deegaanka Gona 28 Diseembar la xiriira baasaboorkeeda halkaas u tagtay isagoo guriga jooga ayuu soo wacay wuxuuna i weydiiyay xilliga aan guriga ku soo laabanaya ayay tiri. waan u sheegay waxaan ku iri 7 fiidnimo. wixii intaasi ka dambeeyay waxa aan ka walwalayay asaga oo ka walaacsanaa. markaan guriga imidna waan ka waayay. wixii intaasi ka dambeysana waan ka walwalsanaa oo waan raadinay. booliska ayaa i soo wacay, waan ogaaday inuusan noolayn. wiilkan ayaa ah Muslim halka gabadhuna ay tahay Hindu. saaxiibada nagu xiran barnaamijyo kala duwan ee halkan ka heli doontaan. fadlan noo subscribe gareeya, like-tana barnaamijka ka iloobinina. mahadsanidin.